hami baa iga dhex guuxayo gubaya laabtayda wax dayaxa guud saaran baan gaadhis leeyahay agta meelaan la geyn baan rabaa inaan u guuraa inkastoon gadaal dhalad ku ahay dunida guudkeeda raggii hore wuxuu gabaan garan insha alleh guulana waxuu iyo sirageedigan rabo. waa markii ugu horeysay oo Sacuudiga aad diyaar ka degano direct waxaan toos u aadnay Kacbadii meel ma ku laalaabmin alxamdulillaah. السلام عليكم كسو دواada waa walaashin Ruqay Maxamed YouTube channelka ay daawanaysa Ruqay official waa idin salaamaya dhamaantiina salaanta mid ugu qaalisan asxaabi videogan waxa waa videogii markii saas ugu baxnay wadanka degnaayay oo u socday agta waxa dhigay Kacbada beedka Ilaahay 13 sano kadib aadaankii salaada subax dhigaheyga ku maqlaa ku dhay marka saas lugta meesha u saarna Kacbada Ilaahay aadaankii salaad subax lagu dhawaaqay farxad adduunka inta ku noolahay maalin igaaga farax badnaa weligeyga ima soo marin alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay mahad u sugnaatay alxamdulillaah farxad iyo waxaan dareemay ani dhan laabteyda waxaan dareemay ani dhan sisiya naqdo wallahi aadaankii ugu horeeyay oo salaada subax la aadaamayo oo markii 13 sano laga soo reebay kadib oo aadaankii ugu horeeyay dhigaheyga ku maqlo ilaahay waxa iga dhigay meeshii barakeysneed Makka al-Mukarrama beedka ilaahay subhanahu wa ta'ala igaaga dhigay alxamdulillaah ilaahay mahad u sugnaatay ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga mahad celinaya waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ii qorin maheli lahan ilaahay ii qorin inaa Kacbada aad tago oo 13 sano kadib dhagaheyga aadaanka salaad subax ku maqlo hadana waxa igu nasiib badan ilaa markaas diyaarada markaas saas ugu deganay cagta saas u dhigay Kacbada markaas saas cagta u dhigay aadaanki salaad subax ima gafin alxamdulillaah waxa ku haminay iyo wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka barinay ilaahu ii saqira ilaahu ii sahlay waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajeenayaa adduunyo jano aakhira jano inuu ilaahay isiyo ani familkeyga inta islaan iyo waalidiinteyda dhamaan intii dhimatan Allah u naxariisto intii noolna Allah u naxariisto anaga xataa markaan noolnahay xataa waxa u baahanahay naxariista ilaahay mar walba u baahanahay sida u jeedaa marka salaadii subax ee hadeertaan oo tahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay maad u sugnaatay marka videogan sida u jeedaan marka waa isku soo dardaraya sida u jeedaan markaan gabsaarka watane waa markii labaad ku soo laabtay laakiin xijaabka madowga markaa wata waa markii ugu horeysay ee cagteyda soo dhigo Kacbada beedka Ilaahay oo aadaankii ugu horeeyay oo aan maqlo 13 sano kadibna markaas waa xijaab madow markaa wata markaan mar labaad ku soo laabtay waay ayadan isla salaadii subax leh waa ma fahanteen dhowr mar salaad subax iyo waxa ku soo tukanay maqrib cisho alxamdulillaah ilaahay waafajiyay ani familkeyga ilaahayna waafajiyay ilaahay maad u sugnaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin marka adigan waxa ku rajeenayaa sidaas iyo si ka fiican inuu ilaahay ku saqiro adigana soo aada meeshan meel barakeysan waa meel oo maxay ahayd xajka deeta horta hal mar waajib kugu tahay laakiin cimrada markasta waa imaa kartaa marka meeshan juhdi soo gali meeshan tii naxariisi waxa taalo iyo nimca taalo farxada taalo wallahi waxa ku leeyahay adi farxad adigaas daawanay oo YouTube ka video soo gina daawanado video ku soo gaaro wallahi waxa ku leeyahay farxada ka maqantay meeshan daatimaad farxad waxa heli doontaa abidkaaga waxa leedahay farxadan maxaa mar hore u imaaweysay farxad dhan oo ka maqnayd meesha markaa heshto waa helaysaa wallahi meel oo la soo degtay oo meel la soo carar waaye ilaahay subhanahu wa ta'ala markasta ku carar meesha si ku naqnaqsado ilaaha naga dhigo allahumma aamin afarteeda waalid u saddex hooyada aabi qabrooda ilaah u waasiyo jannatul firdaws ala allah ka waraabiyo sida u jeedaan saacada idin tusinaya aadaanka dhaceeyo waa salaadii subax alxamdulillaah mahado idil ilaahay u sugnaatay alxamdulillaah marka hooyadii aabe igu soo dhicay inuu qabri u waasiyo jannatul firdaws ala allah ka waraabiyo xaajiga hooyisa bi sidoo kale iyagan inuu ilaahay u naxariisto anaga naxariisto oo ilaahay subhanahu wa ta'ala markaasna si allahumma aamin assalamu alaykum